inta wax la kala hagaajinayo hawl intii ka badan ayaa timid ugu horaantii shaqaale loo qoro in ay kabaan khasaarihii beeraha gaadhay oo ay caawiyaan sharikadihii dhismaha oo hawlahoodii ay dhaqso u bilaabanayaan dhismaha guryaha waxaa weli loo raadinayay maraaq laga qodo nuuradda muddaasee la raadinayay markii dambe mid baa laga helay Kismaayo agteeda oo 100 kilomitir oo qaaliya xagga gaadiidka u jirta Mareeray hawshii waxaa dib loo bilaabay kolkii daadkii joogsaday ileen Mareeray wado fiican ma lehe kolkii injineeradu yimaadeen ayaa waxa ay bilaabeen wado gaadiidka culus mari karo kolkii ay bilaayadii baxday ayaa waxaa mashruucii yimid sharikadihii Wimpy iyo Mowlam roobabkii dambe kolkii ay da'een ayaa makiinadihii ciid gurka ahaa oo dhan waxaa lagu kacshay in ay dhisaan gidaar biyaha cesha oo lagu dadbo webiga sintiisa hawshii mashruucu haddaba imikay badqab ku soconaysaa qaybtii hore ee sanadka intii ka hadhay waxaa la xoojinayay mashruuca waxaa xilligii loogu talagalay dib looga dhacay guryaha mashruuca loo dhisayey waxaa haddaba maalmuhu ku bilaabanayeen iyada oo hawada la saadaalinayo oo la eegayo sida ay maalintu noqonayso webiga qarkiisana weli waxaa maalin walba laga tijaabinayaa heerka biyuhu marayaan beeralayda mashaariicda u shaqaysana waxa ay baranayeen sida mashaariicda waaweyn ee caynkaas ah ee beeraha looga shaqeeyo shaybaadh la sameeyey ayaa joogta loogu baadhaya haddaba cusbada ku jirta ciidda inta ay leeg tahay si loola socdo biyo waraabinta beerta iyo qaabka biyo shubka waxa aakhirtaankii la bilaabay hawshii sharikadda dhisaysay magaalada mashruuca oo hawlaheedii uu daadku dib u dhigay ileen aasaas qoyan lama dhigi kare magaalada Jilib ee dhow ayaa lagu tijaabinayay shaqaalaha loo tababarayay mashruuca mashaariic fara badan oo xagga horumarka ayaa dalka Soomaaliya ka socota sidaas darteedna shaqaalihii xirfadda lahaa wuu yaraaday kolkaasi waxa loo baahday shaqaale xirfad leh oo gacanta ka shaqeeya oo aqoon dheeraad ah loo sii kordhiyo oo gala tababarka dheer waxaa nasiib wanaag ahayd in ololihii aqoonta lagu gaarsiinayay reer miyiga wax weyn uu taray oo dad fara badani Mareeray ay ku jireen dugsiyadu oo ay buuxeen kolkii sanad hawshu socotay ayaa waxa soo baaba'ayay dhibaatooyinkii shaqaalaha soo food saaray cunada oo dhibaato ka taagnayd ayaa imika laga haqabeelay guryaha ayaa weli dhibaato ka taagan tahay inkasta oo ay dhisan yihiin dhismo cusubna lagu hayo waqtiga soo socda ayaa guryuhu intaasi ka sii badan doonaan No problem. No way, man. No way. mar haddii mashruuc u weyn yahay sida kan Mareeray wax kasta way isku xidhan yihiin warshad ku taala England ayaa sharikada la yiraahdo Fletcher iyo Stewart waxa ay shubayeen qalabkii cuslaa ee warshada sonkorta warshad yar oo naqshada ayaa la sameeyay dabeeto injineeradii ayaa darsayay meelaha dhibaatooyinkaasi ay ka iman karaan iyo sida haddaba wax looga bedeli karo wixii xumaada
intii aan la soo dirin ayaa makiinad kasta oo sharikadda Fletcher ay samayso waxa lagu tijaabinayay warshadda dhexdeeda shaqaalaha warshadda rakibayana waxa weheliyay nin Soomaaliyeed oo la tababarayo waa kii ugu horeeyay qaar badan oo lagu tababari doono dalka Ingiriiska